ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن برنامج كان هبيني معه وحكمده ورياب لا يا عاو أي وربعين تبينيان مرايكن كا وحي بريان هير حيصد إيران يجاورك إيه كقادين ضدك مرايكن كا يوبا لميان دعاء يواري أخلك عذاب الكنيسة تسكو بدلالية وحنكوها يا حقيا دقالك دالك مرايكن أو أوبا لميان ضدك إلا قد دعاء إيران شاكيا أبلا ريتا وكساب سنة يعني دينا يا تضبيط طوانك بيشا مرايكنka balana la dhiganaya wasiirka dagaalka balon dhigana roob doom ay sameeyaan hadaan Soomaaliya maqli jirsan 12 balana jirto maraykanka 17 bisha balana jirto qodobada sidoo kale aan barnaamijkeedu ku aanayna waxa kamida Trump ayaa lagu waramayaa in uu sheegay beentii ugu weyneed abid waraysi ay warbaahintu la yeelatay oo aan idin la wadaagi doono Trump wuxuu ummadda u sheegay Iran nuclear-keeda intuu maraalnay sameeyadiisa wuxuu ku leeyahay annaga waxaan la soconaa uranium enrichment-ga Iran meeshu yaal adduunkan ilaa hadda Natanz iyo Fordow iyo Isfahan iyo way ka qaadeen baa la dhahay Iran nuclear enrichment xitaa si ayada Mareykankii baa dhahay Trump hadda wuxuu ku leeyahay annaga waxaan la soconaa cidii gashay cidii ka soo baxday taana taala waxa kula wadaagi doonaa waraysigan oo noqday kii Trump wax aan dadka الميح تاك قد من الآية مو ماشي بروح شيء وكل وذاك دور يسقون مقال مقالة وقدام باين قضبك وقدام باين واحد كم مقال دورتها إنك بدن صدن دومود وكمدا global summit فلاتيلا أيها كوسي سعود قزا وحجاري يدد كران قزا جرجار كي وقبضنا إسرائيل وحيسكو ده يساين يدد كحوك جوجس حالة دمال أدك أي مريان دومك وماشي أي مريان يدد كسي سعوده ففاين تدا أيام أينو بلابين برنامج كقضبة كوسا عبسن حيزة دبارة جدحة iyo sidoo kale Mareykanka iyo Trump hadaladiisa aynu ku bilowno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xiisada maanta ka taagnayd magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka waxa uu madaxweynaha ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay ilaashadaan amnigooda xasiloonidooda waxa uu madaxweynaha hambaliyay doorashada ka socota Koonfur Galbeed doorashada Koonfur Galbeed ka socota warbaahinta maanta adduunka laba qayb sida Soomaaliya looga dhaxadlay ay warbaahinta caalamka dhan waxay uga hadlayaan waxa maanta ka dhacay Soomaaliya guud ahaan Muqdisho iyo Koonfur Galbeed waxa ka dhacay mudaharaadka ka dhacay Muqdisho siyaabo kala duwan baa looga falceliyay mucaaradkii iyo dadkii soo banaan baxay Stadio Konis oo la iskugu tagay dadka tagay oo dad kooban ahaa iyo mucaaradka oo siyaabo kala duwan qaar dacwoonayay qaar la arkay iyagoo socdo kuwa sheegay in jidka laga celiyay sidoo kale waxa dhacay in Allah u naxariisto qof maanta lagu dilay in goob kamid ah magaalada Muqdisho oo la sheegay inuu kamid ah dadkii soo banaan baxay dhinaca kale warbaahinta caalamka maanta waxa ay ka hadlayeen qayb runtii wanaaga Soomaaliya ka dhacday oo waxa kamid ah doorashadii Koonfur Galbeed waxay warbaahintu soo sawiraysay dad saf ugu jiro oo codeynay anagu ma garan karo xaqiiqda meelaha laga codeeyo waxa kamid ah magaalada Waajid oo la arkay hooyo 80 jir oo codeynaysa markii ugu horeysay taariikhdeeda waa yeel caruur siyaasiyiin codeynaysa madaxweynaha arinta ka hadlay ayaa sida tan u sharxay maanta waa maalmihii waaweynaa oo Soomaaliya taariikhda ay sameynaysa kamid ah markii labaad ayaa dad Soomaaliyeed waxay u dhaqaaqeen maanta doorasho qof iyo cod ah iyo inay cabiraan ra'yigooda iyo cidda ay u rabaan inay hoggaanka noqoto waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyeynaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka ku nool dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan leeyahay hambalyo taariikh cusub iyo bog cusub ayaad Soomaaliya u furteen 13 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedkaas ayaa saaka dadku waxay u dhaqaaqeen inay codkooda dhiibtaan oo ay codkooda u dhiibtaan dowladaha hoose iyo kawnsalada degmooyinka iyo wakiilada dowlad goboleedka intaba waxa Ilaahay mahadiya saacada idila hadlayo oo maalintii ay gabagaba joogto in wax dhibaato iyo wax culays iyo wax incident ama dhib oo dhacay aan jirin dadkuna ilaa saaka ay safaf dhaadheer u taagan yihiin in ay codkooda dhiibtaan anay dhiibteen si mudan in la dabagalo sidaas ayaa dadka Soomaaliyeed dhabta waxa ay rabaan dadka Soomaaliyeed taasaa ka turjumayso ma ka turjumayso nin kaligiis meel taagan oo asagu sidiis u taagan waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka soo shaqaysay tusaaleedii waa ka inta kala dalkana inay sidaa u dhameystirtaan rabno
waayahay taasi waxay ahayd khudbadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu uga hadlayay xaaladda dalka uu marayo gaar ahaan arrimaha doorashada iyo amniga oo uu xoogga saaray waayahay saaxiibada qiimiga loo inuu ku soo noqono arrimaha bariga dhexe iyo caalamka madaxda Mareykanka ayaa lagu waramayaa hadda in ayba ka marayso ama aqalka cadba loo bedelay sida kaniisad dadka lagu wacdiyo dadka maaragtay ay waxay iyagu aaminsan ugu yeeraan duca ay ku qabsadaan mar Iran baa lagu habaaraya mar Trump baa loogu duceynayaa هذا تضبيط توك بيشا وزيركي دفاع حقيقي دفاع مريكان او هذا يوم بحيان حقيقي دقالك بيتا هكسد dadkii Mareykanku ballaminaya war wuxuu leeyahay kaalaya bal ilaahay is xasuusinay moogtay darbaxada Iran nimankan waxay ku noqotay musiibo la iloobilaya Trump iyo kooxdiis waxay isku dayeen dadka arrimo diimeed iyo Mareykanka waa wadan diin la inay dhahaan ilaahay baa dadka lagu xasuusinaya iyaga Jesus baa dhaa walaayadu billah wiilka ilaahay bay ugu yeerayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kana sahan yahay wax walba ay ku tilmaamayaan xumaana marka waxa uu bita hagsa dadku u balabanaya sida soo socod bal ila daawo. Our founders knew two simple truths. Our rights don't come from government, they come from God. And a nation is only as strong as its faith. On May 17th, we're heading to the National Mall to celebrate America's faith. I'm personally inviting you to rededicate 250. It's a national jubilee of prayer, praise, and thanksgiving on May 17th in Washington, D.C. It's a time to unite, a time to give thanks for victories, and rededicate this republic to God and country. Join us for this historic spiritual revival. Get your free tickets today at Freedom 250. Way waa kana xogayii dagaalka wuxuu ballaminaa in la duceysto annagana kuweena waa kuwaana hadda waxa leeyahay diintii dowladda la kala saaro war nimankii lagu dayaraayay oo wadamada muslimiinta qaarkood dhumiyay waa kuwaana ilaahay oo noqonay ku leeyahay inna diina 'inda Allahi al-Islam adigoo islaamkeestana xitaa madaxdii Soomaaliyeed waxay iloobeen war kaalaya aan madaxtooyada ku duceysano war dadka hamidoobaan war ilaahay ka baqadeen in sheekh loo malay u malayaan qaarkood had markii khudbada xitaa qaarkood bisinkii ka tagay qaarkood had siyaasiyiin Soomaaliyeed fiirs walaalayaal ay ka bilaabeen bismillaahir rahmaanir rahiim inay dhahaan inay nabiga ku saliyaan qaarkood way ilaabeen kaliya Soomaalida ma xitaa siyaasiyiintii dunida islaamka oo dhan wala yaaba ninka intuu soo istaago in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh haduudo waxa la ninkan diinti iyo waa wadaad arrimaha muxuu ka qaban karaa waa kuwan ahay hadda wuxuu ku leeyahay May 17 ay isku imaana Freedom 250 meesha organization kan loo tigid ka goosta waxay noqon doontaa maalin aan duceysano ilaahay is xasuusino buu leeyahay Mareykankaasi darbaxa loogu wada ilaahay xasuustay من إيران الله وعمق لك سافير كوجا كوجو مسلمين ماشى والله وعماك صعد مركا قال هذه هذا وعركتان مالك سوال أرضي وكلها هذا الكساد الوين كجري هذا العلوس أي كجري أنا إسقى واحد بدن أنا كودي دنا وأجري أما كلهم كودي دنا مركا لقرا يبو الرياضة قار وسوء إسقى وفهم سيا كدون لكن صح وحكم إذا أرجع نقوله حقوق ذي أنا إلهي our rights are coming from God not from the state وعليه حقوق ذينا إلهي أكتسي كإيمانيسا دولت كما إيمانيسا أنا إلهي بقفك حقوق ذي سسي أنا دتكي بقى سيدان هذا أبرا روجي دتكي ومضى مريكان كإنك صور رجال بيتك كلا نعدين كجدوة لكن سجل في تركيز دتك وحكم إذا ديمقراطية حقوق القوم كلمة دتك كل رجالين جري وأكون مانت يجا دتك وجاري إلى إن الحسوس وهي هاي صاحبة قيمة الله إيران وحسهلا ما قضب كاس مركين ماش وجود منو حين وقلنا قضب كحاجة برنامج ترامب ولي الرماها مريكان كانوا وجود الجنة وحا ما أنت لجسوا حكتي بنتي وجوينات إن مدحوينا مريكان أبد وكهذا وحا لجوي دي ترامب إلا أيامها وحا صوب حذي النوكليير كدلك إيران عمل وجوين نوكليير كدلك إيران إنا ميل لجو أوجين باصوب حد يورانيوم كم وحلاقة سميست نوكليير قابي لجو أوجان ننتاس يفردو إسفهاني إن لقى قاضي أو ميل أن لا أوجين سيا هذا سيا لقى سو حكتي وهذا دونتا جاكرين كريسو ما صو هوبين كريسو وحمرك هذا ترام لويدي
inay meel ku og yihiin uraniumka nuclearka dalka Iran